waxaan hayaa arrin wanaagsan baan hayaa maanta shir baynu leenahay shirkeeniba haa haye shirkaana waxaan jeclay go'aamada ka soo baxa inaad ku qanci doonto waayahay soo daa axmedow carruurteennii shanta aroornimo bixi jirtay kuwii shanta ka lihi jiray haa waa kow shanta ma baxaya haye toddobaday toosaya waa kow sideedana garaasyaday gelaya haye lacagtii bareefadka haa aad ku bixin jirtayna haa anaad igu soo wareejinay dhowr bilood dabadeedna aqalkaan ku darayaa badh hayaay dacanay markiiba waan ku fahmay ujeeddadaada haye waxaad isleedahay carruurtaadaa hablow badanoo intaad iskuulka ka saarta lacagtana odaygu ha ku siiyo iyaguna aqalka ha kuu xaadxaadhaan xaaraan bay ka tahay hablahaygu iskuulkay tegayaan shantay kala hayaan lacagtii barayfidka sidii baan u haysanayaa axmedow sidaa maaha maxaad ka wada waxa weeye waxaan ogaaday marka horeba inaynu waalayn haye iskuulkii dawladda ilaa uladii ilaa dhexe ilaa sare ilaa jaamacad kulliyaddu qardigu doono intuba waa bilaash waan gartay waana manhaj toosa haye maxaa marka horeba bareefadadan innaga maxay inoo geeyey canabey imikun baad haddaba aniganay soo wada celisay maskaxdaydii ma ku soo celiyey show waa runtaayo waxaynu ka iimaanbeelnay kuweennii dawladda oo kuwa kaloo lacag badan un baynu geynay aad iyo aad midda kale shahaadada laftirkeeda dee dawladduunbay ka daba joogaana ma iyagaa wax keensanayay bal markaa maxaad iyaga ka doon miyaynu keenuun iska daba joogna de waa siday sax baad ku tahay maanta laga bilaabo lacagtii waan kugu wareejiyey xilkii waan kugu wareejiyey carruurtii waan kugu wareejiyey dee waa kaase u tali waa sidaas taana u talinaye waxaa la yidhi kii aan walaala ahay ayaa farantii ka yimi oo lay sheegay saaka walaalo alla walaal maxaad jiidii hore maxaad ku casaatay walaal maxaad cunteen hilibgeel baa ka dheregnaa maasha allah timirna waanu ka dheregnaa kalluunna waanu ka dheregnaa adiga iga arka beelahayga dee walaalkaa caddaantiisun baad arkaysaa ilkihiina wuu ku soo beelay waa hidibgeelkii maxay ku darna in yaroo fariin maa xaggii reerka iga timid waxaa la soo gaadhsiiyey gabadhii in la qalayo ilma lagu jeexayo markaa waxay qof saxaxaa loo baahan yahay oo markaa annagu si deg yagow kaalay seedi dee ma annagaa dhakhaatiir noqono gabadha kuu qalayna seedii waxaan doonayey waaba la geeyey hortiyaaba la geeyey oo bareefi la geeyey waxaan doonayay intii yareeda wuxuu igu yidhi dhakhtarkii $500 la'aanteed lama taabanba maayo ma shan ku dhan ma $500 dame baa lagu yidhi keenoo laba taaban maayo waa la qalayaa horta seedi nacas baad hoosta ka yarata adigu miyaanaad isogeyn inaad dan yarta aabbahee tahay ood askari tahay dee iska ilow haddaba gabadhii imaka laga soo bilaabo ka soo qaad dhakhtarkaad sheegayso xanaanada gee iyagaa kuu qaadaya ambalaaskay saarayaan dhakhtarka dawladday kuu geynayaan ilmaha way kuu qalayaan gabadha ilmihii iyo gabadhii oo isjaqaaya ayay kuu soo celiyin adiguna jiiddaadii iska tag ama gaadhkaagii iska qabso ayay ku odhan ta kale dhakhtarkii milatarigaaba dhowaan kuu dhammaanayo adig iyo xaaskuba dhakhtarkaa milatarigaad iska dhuuqaysaan imika laga bilaabo ka soo cesho kaale walaal anigay dhegayso inaga $500 dhakhtarku ma isagaa kuu yimi mise gabadhaada waa loo geeyey isagaa lugihiisa ku doontay idinkaa qaldan innagaa qaldan waxa weeyaan dhakhtarkii weynaayee dawladda wax walba waa lagugu qabanaya nacam kaale arag shaybaanka yaalla waa wada bilaash imikaan kula kaxaynaya ilaa keliyaha la sifaynaya hadhow gabadhiya ilmiha isjaqaya ayaa gurigii lagu geenaya marka lagu daweeyo ee weliba lagu qalo anaa daweeyahana soo diraaye xanaanada meelana ka bilaabin dadku iyagunbaa waxaan caashaqsane war dawladdu way u shaqaynaysaa tii dawladday ka iimaan beelanoo barafidkay ku maqiiqan yihiin maaligay doonayaan